ololaha guri iyo geed oo inta badan ka socda degmooyinka Puntland ayna iska kaashanayaan dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland iyo Diriya Foundation oo ah olole kor loogu qaadayo bilicda magaalooyinka Puntland ayaa dhalinyarada isxilqaamayaasha daliftiinsha ee degmada Carmo waxa ay soo gaarsiiyeen kuliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo waxaana ay ku wareejiyeen 100 geed oo qayb ka ah ololaha guri iyo geed qaar ka mid ah dhalinyarada isxilqaamayaasha daliftiinsha ee degmada Carmo iyagu dhirbeeristan kala qayb qaatay saraakiisha kuliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo ayaa u mahad celiyay Diriya Foundation oo iyadu dhirtan soo gaarsiisay gaar ahaan gobolka Bari in maanta aanu si wada jira ugu beerayno dhirtii ay noo soo diyaariyeen Diriya Foundation iyo runtii shirkadda Amal oo runtii aad aragtaa inay fanaladaha lagu shaqeynayo iyo maxay ahayd qaabka lagu keeno ka qaadatay marka waxa weey aad iyo aad buu mahadsantiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa taliyaha oo runtii ah furaha horumarka kuliyadda mar waliba u taagan oo maaragtay inuu kuliyadda horumariyo maanta waxaanu si rasmi ah magaalada Carmo uga daahfuraynaa barnaamijka guri iyo geed oo guud ahaan magaalooyinka Puntland ka socda gaar ahaan akademiyada booliiska baan ku sugannahay goobta shaqadu ka socoto runtii waxaan aad ugu mahad celinaynaa Diriya Foundation oo nagala qayb qaadatay barnaamijkan guri iyo geed waxaana ay u wakiilatay inay magaalooyinka Puntland ka fuliyaan cagaarintan guri iyo geed dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland maantana si rasmi ah waxaan uga daahfuraynaa akademiyada booliiska oo runtii baahi weyn u qabta dhirta in lagu beero runtiina barnaamijka guri iyo geed oo ah barnaamij aanu isleenahay wax badan waa ka bedeli doona magaalooyinka Puntland insha Allah berri ka maalina waxaan rajaynaynaa in la arko magaalooyinka Puntland oo wada cagaaran wada qurux badan oo waxtar u leeyahay deegaankan gaar ahaan hadda waxaanu joognaa xerada booliiska ee Soomaaliya ee ku taala degmada Carmo iyadana insha Allah hadda aan u jeedaan saraakiish iyo ciidankii kulliye oo ka qayb qaadanaya beerida dhirta iyagoo qiimo badan agtooda ka leedahay nin walba uu leeyahay geed aniga la taqaashanaya waxaan rajaynayaa insha Allah qof walba inuu ka qayb qaato garab naga siiyo dhirtan insha Allah feeska waad way feeska labaad insha Allah waqti dhow u imaanaya waxaan kaloo u mahad celinayaa taliyaha akademiyada booliiska Soomaaliyeed ee degmada Carmo oo aad aragtaan galabtay shaqada uu qabtay isaga ciidankiisa dhammaan waxaan indhahayaga ku aragnaa inay dhirtii ay salka wada dhigatay oo godadka loogu talagalay lagu riday taama hadeedana waxaan siinaynaa ciidanka iyo taliska booliiska degmada Carmo waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhalinyarada isxilqaamayaasha oo waqtigooda u huray maanta iyadoo ay tahay maalin Jimco ah iyaduna waa fursad qaali ah oo ay dhalinyarada u bixiyeen deegaankooda iyo dalkooda iyo xerada ummadda Soomaaliyeed maanta dhirtaa waxaan ku ridnay nin guriga kuma ridina waxa ku ridnay guri la wada leeyahay oo ah guri Soomaaliyeed oo ah gurigii lagu barbaarinayay ciidanka Soomaaliyeed qaar ka mid ah ciidamada booliiska Puntland oo iyagu tababar uga socda kuliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo ayaa iyagu ka qayb qaadanaya dhirbeeristan lagu sameeyo kuliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo saraakiisha booliiska ee kuliyadda Carmo oo ku jira xerada booliiska Soomaaliyeed oo ku beerayna dhulka in geed la gooyo inay ka fiican tahay in geed la beero waxaanu diyaar u nahay inaanu dhirta beero waraabino sidaa darteed qof kasta oo biliis iyo qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan leenahay dhirta hal la beero waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dacfadda saxitaanka koobka ciidanka booliiska Puntland inaan ku beero halka geed oo halka yaala mustaqbalka waxaan jeclahay insha Allah inuu soo baxo waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad sida ay uga qayb qaadanayaan ururka isxilqaan degmada Carmo dhirta oo noo keenay iyagoo dhirta noo keenay aad baan u soo dhaweynaa fikirka ay wadaaneen waa niman dhalinyaro oo aad firfircoon weeye iyagoo hanti wadaag waa habka barwaaqa noo horseeday bulaanka baxaya nurka bidhaamaya dhawaaqa isu baaqaya shaqaaleeyo barbaarta uu isbiirsaday barbar taagan tooradooda u ballan qaaday hanti wadaag inay badbaadiyaan anigu waa ku jira kuliyadda Carmo oo Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan ku beero geed waxaan jeclahay in dhulkeena noqdo dhul cagaaran sida kuliyadda Carmo dhirbeeristan lagu sameeyo kuliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed oo qayb ka ah sare u qaadida bilicda kuliyadda waxa ka qayb qaadanaya saraakiisha kuliyadda iyo qaar ka mid ah ciidamada booliiska Puntland oo halkan tababar uga socdo iyo dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland Maxamed Baras Ciid Maxamed Dadaal raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Carmo